muuqaalkan waxa uu ka tarjumayaa farqiga u dhaxeeya ragga iyo dumarka markay xaaladdu xumaato. koox hubeysan ayaa gaari ku horjartay gaari ay la socdeen nin aroos ah iyo caruusadiisa. ninka ayaa la istaajiyey, qoryana lagu qabtay. xaalka ayaana noqday mid indhataag iyo lama arag. waxaana ninka mooryaanka qori cabaysan uu farta ka saaray ninkii arooska ahaa, wuxuuna ku amrayaa inuu qorigaasi qabsado deetana uu toogto xaaskiisa cusub amba aroosada. ninka ayaa indhaha taagaya asigoo ka fajacsan amba ka naxsan amarka ninkan hubeysan ee manaxa ahaa uu siinayo. xaaladda ayaa weli ku xun. indhaha ayuu taagaya, waxaa la tusayaa inuu qoriga ku jiro xabado, iyadoo qof halkaasi jooga durba xabad oo ku dhuftay ninka manaxa ahaa. ninkii ayaa loo dhiibayaa qoriga. dil xaaskaaga ayaa la leeyahay, waxbaha ka walwalin. ninkii indha ayuu taagayaa, ma awoodo xaaskayga inaad dilo ayuu ku warceliyey. weli waa la qasbayaa, qori ayaa gacanta laga saaray. kill your wife ayaa la leeyahay, amba dil xaaskaaga. waa tana gacalisidiisoo lahay dilin, waa ku baryaa biliis hay dilin, iyadoo markaas u muujinaysa jacayl. ninkii ayaa dareenkiisa bedelmay, wuxuu awoodi kari laayahay inuu gacantiisa ku dilo jacaylkiisa amba xaaskiisa. ninka ayaa sii jeestay si uu xaaskiisa ninkan u dilo, hasaatee ninkan ayaa ku celiyey, ma awoodo inaad dila xaaskayga. si xanaaq leh ayaa loo fiirinayaa, durbana waxaa laga qaadayaa qoriga isagoo indhaha loo cadeynayo. ninkii ayaa durba qorigii uu ninkii ka qaaday wuxuu farta ka saaray gabadha aruusada ah, isagoo dhankaasi kale u wey ciyaarinta. wuxuuna gabadha aruusada ku amrayaa in ay ninkeeda disho. indhaha ayay taagaysaa, balse gacanta ayay si degdega qoriga ugu qabsatay. ninkii indhaha ayuu taagayaa, talo ma ku dili doontaa mase way ku cafin doontaa ayuu isleeyahay. wuxuu malaynayaa inay jeceshahay, badbaadinayso. wakhtiga iga lumin, isdiyaari, waa lagu tooganaya ayuu leeyahay ninka hubeysan ee mooryaanka. haweeneydii ninkan aruusada u ahayd qoriga ayay gacanta ku haysaa. xaalku caadi ma aha, qori ayaa iyadana lagu sii haayaa. waxaa la leeyahay dil ninkaaga. iyadoo dhehaysa iga raali noqo ayay durba qoriga ku aadinaysaa. riishadda ayay qabanaysaa si ay indhaha ayadu isku way ku riday, laakiin nasiib wanaag qoriga wuu leeb dhacay, xabadna kuma jirin. waxaa ninka loo muujinayaa in gacalisadiisa aysan wax jacayl dareenah u haynin, ayna damacsaneed inay disho, balse nasiib wanaag uu ku badbaaday. ninka ayaa ku diganaya, ninkan jacaylkaad sheegaysay aawe aad u qabtay gabadhan xaaskaaga, muu jeedaa inaysan ayada ku jecleen, ayna kaa doorbiday in iyada noolaato adigana aad dhimatid.